markaasuu هاي yidhi garaaca taleefonka soo qabo hoo taleefonkaaga garaac waxaad ku tiraahdaa maqashii sameecadda shido inay saaka kula joogeen iyo inaanay kula joogin waa aniga idhi acuudu billaahi min ashaydaani rajiim goormay gaadhay inaynu saa u kala shakino oo aan is aamini weyno xitaa hadalkayga heeraad aamini weydo goormaynu xilligaa gaadhay markaasuu yidhi maya garaaca taleefonkii baan soo qaaday waan yaabanahay ilaa hadda anigu meeshii waxa ka socdaan ma fahansanin هاي taleefonkii baan soo qaado walaashii baan garaaco sameecaddii baan shiday sameecaddii markaan shiday baan ku idhi heblaay asalaamu calaykum calaykum asalaam saaka awal miyaad ii timi markaase waxay leedahay maxaa kaa qaldan isku dhex daadatay maxaad ka wadaa miyaad ii timi walaalo haay waan ku weydiiyey saaka miyaad ii timi soonagii kuu imiyeen halkaa ku wada quraacno quraacdii waxaa wada cunno halkaa ku wada qadayno xilligaa kaasoo tusnay miyaad isku dardarsantay ma adiga imka sanad iyaa ku qabay goorma isku darta goorma anigii bay foorseynaysaa inan هاي markaasaan ku yidhi walaalo waxaan moodaya inaan ku riyoonayay iyo inaad ii timi baan kala sixi waayey waaya taleefonkii baan ku dhigay marka hadalkaasuu ku qancay oo ku degay هاي markaasuu igu yidhi taleefonkaaga nin baa soo garaacay sidaasuuna ninku yidhi ninkuna waa ninkii kula socon jiray saaxiibkaagii hore هاي markaasaan ku yidhi nafti ilaahay buu ii keenay taleefon kasta waan ka baloogareeyaa markaasuu mid cusub soo samaystaa waa ka intaasoo lambar baan ka baloogareeyey khaatiyaan baan ka taaganahay anigu shaqo kuma lihi anigu adigaa baan kugu qanacsanahay meelnaba kuma dhaafsan هاي waa ka yidhi waayahey hadday sidaa tahay aniguna nin baan hay isaguna waa nin waxaan kala qaadno iga teg inankii isagiiba intuu taleefonkiisa soo raadsaday buu isagii nafta u keenay marba taleefonka soo waca yiraahdo gabadhan jeclaabaad qaadatay goray haataba waan kaala wareegi markaan arkay in meel xun ay ku socoto xaaladdu ayaa waxaan ku idhi ka waran haddaan magaaladan iskaga tagno Itoobiya degno anigu waagi dhow Itoobiya degisay Itoobiya kasoo helay Addis Ababa kasoo helay waa magaalo qurux badan waxaan doonayaa inaan halkaa aan wada degno هاي meeshii saan ugu buush gareynayay ayuu wuxuu igu yidhi markii dambe kolley haddaan safrayno oo adigan safar ay kaa haysee South Africa ayaan jeclay inaan tagno halkaa aan business ka samaysto هاي ina mari baan ku idhi hal magaaladan hal mar iga kaxe waa anigu ninkaygan waan jeclay inaan waayo ma rabo ninkana uu masaysan yahay wax laalo wuxuu doono sameynaya هاي isa soo raacnayo xaafadii hooyo baan u sheego hooyo waxay tiri haddaad tegayso inantii dhimatay labadeedan caruura nooga tag aan anagu ka weheshanay haddii halkaa xero qaxoonti baa ku taale xerada qaxoontiga aad gashaana qoro haddii markaa wax idiin soo baxaan waan idiin soo direynaa caruurta waayahay baan ku idhi waan soo baxnayo waxaanu nimi South Africa nimi aniga isagii markaan South Africa nimi oon halkii joogno oo nolol qurux badan ku jirno oonan habeen iskhilaafin oo aan first baby-gi u qaaday oo aan xaamilo ahay hadday adkaanaysaa haddana هاي ayaa waxaa dhacday maalin subax buu iga baxay subaxii markuu iga baxay dee xaamilaan ahay caawa iyo habeen dambe macaawan dhan mise habeen dambe habeenkii ku xiga xilligii ilaahay keeno aan sugayo ayuu subaxnimo iga baxay subaxnimadii markuu iga baxay qadadii muu iman galabtii muu iman fiidkii markay ahayd ayaan taleefonkiisii garaacay taleefonkiisii ma dhacayo هاي وحاملات مركز هذول haa caawa iyo habeen dambe لو شيء كستا قبل ما كحاملات محنك وحماية ويا هاي نكاس بالمحكم مقيم بس شيء قبل كله كله قرص دي أحكي لكم مقيم taleefonkiisii baan garaacay mise ma dhacayo waan ku celiyaa ma dhacayo waan ku celiyaa ma dhacayo waxaan garaacay inamadii la shaqayn jiray war heedhe hebel ilaa maanta taleefonkiisii ma dhacayo ilaa maantana inuu soo wacine ma jooga markaas wuxuu igu yidhahday maanta duhurkii buu naga soo tegay labadii duhurnimo markay ahaydoo wuxuu yidhi arrin baa uu naga soo tegay oo xaguu aaday taleefonkiisii haddaa ma dhacayo bal sugan garaacane iyaguna dhankooday ka garaaca taleefonkiisii ma dhacayo inankii la raaday magaaladoo dhan baa soo kiciyey warka kacay ninkii miyaa la dilay miyaa la xidhay habeenkiisaan u fadhiyey unu warwarayay oo marba taleefon u garaacay baa waagi galalac ku yiri هاي محل أودن تمليدين أنا محل إنك اسمه من أجا ودك مقيم يا محل ما نسأل أودن تبدأ تصور قرية أودن توا وهنتا قبل بكون مقيم ده أنا قبل بكون مقيم وقصلك إنك اسمه من قبل بكون مقيم أنا حاجة قانوي هاي أودن توا وهنتا ما دي من وقصلك أوكي قبل بكون مقيم وقصلك أودن واي inankii maalintii labaad sidii baan raadinayn habeenkii ku xigayna sidii baanan u seexan warwarkii nabar baa saa caloosha lagaga jiiday markaa nabarka naxdin baan moodayaa ee warwarkii iyo soo jeedkii iyo naxdintii fool baabay qabatay markaa labaan isleeyahay anigu ama ninkii waa la dilay ama waa la xidhay
magaaladii oo dhan baa raadinaysa inamadii oo dhan baan u diray halkii baan dhakhtarkii tegey waaba fooshii dhabta ahayd fooshan xanuunkan fooshay ahayo waxay kaga daran warwarkiisi talo ma dhinta talo isagoo gogo-an baa lagu keenaya talo dib ma u arkaysaa talo muu xidhan yahay macadow baa meel ku haysta caloosha tashi badana waan umulay inan baan meesha ka umulay wuxuu maqan yahay 2 maalmood wuxuu maqan yahay 2 habeen iyo 2 maalmood iyo badh weliba 5 caanamaal 5 caanamaalka dadka wadankii joogaa garanay waa 2 maalmood iyo 2 habeen iyo maalin saddexaad ayuu maqan yahay anoo dhakhtarkiisa jooga oo markaa umulay oo ilmahanaan umulay iyo waxaan umulay iyo fooshan xanuunkeeda iyo waxaan baanan dareemin laakiin weli calooshu ay isagii ka warwarsan tahay ayaa lambarkayga soo dhacay lambarkayga markuu soo dhacaan qabtay waa isagii salaamu calaykum asalaam iska waran war waan fiicanahay oo dhakhtarkii baan joogaa waan umulay maxaa kugu dhac miyaad umushay haa waan umulay maxaad umushay wiil maasha allah reerka wiil labaad baa kusoo biiray war ileen waan umuli lahaa kole haddii ilaahay kale nabad keenaye inaan wiil dhalayna waad ogeyd waa isagiiba waa isagii acuudu billaahi min ashaytaan rajiim haye maxaa ku helay maxaa kugu dhacay ma noolayd miyaa lagu xidhay matuugaa ku qabsatay su-aalahaasaan weydiinaya markaasu wuxuu igu yiri markaa isagoo anoo su-aalihii weydiinaya 2 wiil oo soomaaliyana oo kuwii dukaanka kala shaqaynayana ay dul taagan yihiin ayaa neerasadii iisoo gashay markaa waan baxay deetana waxaan ku uri gabadhii neerasadii baa iisoo gashay ila hadlaysa isug aan la hadlay markaasuu yiri ma iska baxo gurigaagii tago waan kula soo hadlaya markaad guriga tagto hebelna iigu dhiib hebel soo kulama joogo haa hebel iigu dhiib hebelkii baan teleefonka ugu dhiibay markaa waan baxayo neerasadii ay la hadlaysay deetana hebelkii wuxuu ku yidhi gabadha kaxeeyo gurigii geeyo lacagtii halkaa taalena intaas ayaa uga soo saara okay aduu sheegaya markaa haa waa aniga deetana wuxuu yidhi oo adigu xaggaad joogtay waan saan kuu raadinayna waan daalnay meel baan gaadhay anigu dan baan yeeshay gabadha kaxee guriga geeyo lacagtaan oo geeyo hadhow baan kula soo hadlaya iyadana ku dheh teleefonkiibuu dhigo waan baxnay gurigii baan tagnay waa goor fiidnimo ah waa habeenkii saddexaad markaan ma'ayn 2 habeen iyo 3 maalmood habeenkii saddexaad weya gurigii baan tagnay gurigii markaan tagnay ayaa waxa dhacday markaa waa habeenkii waxaan ka fikirayay maxaa ku dhacay talow waxba kumuu sheegin kumuu odhan halkaasaan tegey iska seexday umul baan ahaayo 2 casho horena maan seexan xanuunkii tacbaankii markaasuu wixii bay igu soo baxay codkiisa aan maqlay maalintii dambe oo dhan ima soo wicin habeenkii dambe habeenkii uu ila hadlayay habeenkii ku xigay ayuu ila soo hadlay iska waran oo ilmaha yar ka waran oo adigu see taho xaaladaada caafimaadkaaga maasha allah aad baan u fiicanahay waaya xag maxaa kugu dhacay miyaa lagu xidhay maylay ma xidhin haddaa matuugaa ku kaxaysan maylay ma kaxaysane waxbaan rabaa inaan kuu sheego waxaan doonayaa inaad isdejiso waxbaan rabaa inaan kuu sheego waa inaad isdejisaa haa adkaate haye oo waa maxay waxaad rabta inaad ii sheegto horta magaalada ma joogo anu magaalada waan ka tegey waad ka tagtay xaggaad aaday maraykan baan joogaa maraykan haa maraykan baan joogaa maraykan halkaasaana tegey haa maraykan baan joogaa halkaasaana tegey gabadh ayaana i kaxaysatay oo ninkan ku qabayba gabadh ba u dacwoonaysa intaasba haa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun xalay baan soo umulay waa habeenkii labaadaan umul ahayd 2 habeenoo ka horreeyaan foolanayna isagaan raadinay yaa gabadha markaasuu yidhi haa haa gabadh ayaa ii dacwootay xaas ah oo aan qabo markii aan ku lahaa South Africa ayna marina fiisuu halkaasuuba iiga socday uu ii soo baxay kuma aan sheegin maadaamaad xaamilo ahayd saa awgeed baan u soo baxay markaa dee saa ula soco waxaan ku idhi goorma ayaad guursatay goorma ayaad guursatay wuxuu igu yidhi waxaan guursaday buu igu yidhi
waxaan guursaday buu yidhi walaashaa iyadoo noolayd walaashaa way noolayd markaan gabadhan guursaday walaashaa way ogeyd adiga si kumay ogeyd ya waagii ma garanaysaa walaashaa iyadoo nool waagii walaashaa noolayd intaan adiga xigsiisan kale kaasiin ayaan gabadhan guursaday